madaxweynaha aynu dooranay madaxweynuhu waa madaxweynihii shanaad iyo madaxweyne ku-xigeenkii shanaad sidaasaynu ku wadnaa waynu wada leenahay somaliland uma baahna cunsuriyad iyo in shuruuda lagu xidho oo maalina la idhaahdo waanu ka tirsanna oon ka baxana maalina la idhaahdo haddana waanu ku soo noqonnay ma aha aqal laga baxayo lagu soo noqonay waa wax joogtaa somaliland waa waddan jira waa dastuur iyo nidaam leh waxaan leenahay nidaamkii dastuurka ha loo ilaaliyo arrinkana wuxuu ahaan doorashana waa la wada galaa waa la kala helaa waa la isku hambaliyeeya waxaan leenahay guushu waa la wada leeyahay guusha waa la wada sheegtaa guuldaradana waa laga yaacaa waa la kala sheegta haddii maanta xisbigii kulmiya guulaysto oo lagu soo wada qamaamay waan soo dhaweyn cidna diidi mayna waan soo dhaweyn laakiin waxaan leenahay si edab leh u soo dhawaada si edab leh oo dastuur ku jiro ku soo dhawaada oon ku soo dhaweyn nin kastaba wuxuu ku hadlaan dalkana waa la yaqaanaa dadkana waa la yaqaan waxaa jira dad wax lama jiraana sheegtaa jira dad waaweyna yani aan jirin sheegta magacyo aan jirin sheegta saldana una ahayn sheegta ayaa jira kaa waxba kuma falayno ummaddaa taqaana dalka iyo dadka madaxda dadkana waa la yaqaanaa waa laba ninoo la doorto madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena kolba midunbaa fadhiista qaarna way uga horreeyeen qaarna way uga dambayn doonaan halkaa xeerkeeda iyo waajibaadkeeda yaan la xumaynin waxaan maqlaynay qaar kala reebay yaan maqlaynay oo weliba kursigaana waa loo dhashaa odhan jiray waa yaan maqlaynay waxa weeye wuxuu yidhi ugaas arrinka ninaad necebtahay aad ku xukuntaa ninaad jeceshahay buu sugaa waxaan leenahay waar halkaa ka noqda abolojiis ka bixiya intaa un baan taana ku dhaafayaa